ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre muxuu ka doonay Imaaraadka waa maxay waxa aadan ogeyn oo ka qarsoon taariikhdu waa maragay aan ku xasuusiyo January 2015 ra'iisul wasaaraha dawladda xilligaasi Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo danjiraha Imaaraadka u fadhiya Soomaaliya Maxamed Axmed Cismaan waxay wada yeesheen kulan qarsoodi ah oo dawladda Imaaraadku ay kaga dalbanayso in maamulka iyo dhismaha dekada dhowr oo Soomaaliya ku yaala lagu wareejiyo shirkadooda Dubai Ports World oo marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano DP World dalkeedana oo Umar noqon doono saaxiibka iyo wakiilka Imaaraadka ee arrimaha Geeska Afrika waxaana xilligaasi Umar iyo DP World dhexmaray heshiis 65% ay saami ahaan u heli doonto shirkadaasi iyo maamulka Somaliland oo 35% heli doona inkastoo heshiiskaasi aan la horgeyn baarlamaanka Soomaaliya haddana waa mid markii loo baahdo ay DP World bari isticmaali doonto si ay cadayn ugu noqoto haddaba shirkadda DP World oo heshiiskii hore doonaysa inay dib u soo cusboonaysiiso maadaama saami dhan 19% ay siisay Ethiopia ayaa waxa qasab noqotay in la helo saxiix cusub oo heer federaal ah si ay shirkadaasi u hesho tixraac waayo Somaliland ma ahan wadan la aqoonsan yahay oo saxiixdiisu ay caalamka ka shaqeynayaan bilowga bishii hore Muqdisho laba mar waxa ku kulmay ra'iisul wasaare Khayre iyo danjiraha Imaaraadka iyadoo labada dhinac ay ka wada hadleen sidii loo heli lahaa heshiis khayr ah isla markaana aysan ogaan dawladda inteeda kale iyo baarlamaanka Soomaaliya maadaama diidma imaan doonto sida ay aaminsan yihiin labada dhinac ra'iisul wasaare Khayre oo culeysyo iyo herar siyaasadeed dhexda baalanaya ayaa si fudud u aqbalay codsiga danjiraha sidoo kale waxa kulan telefoon u dhexmaray ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo Xasan Cali Khayre kaas oo kalsooni loogu muujinayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya war-saxaafadeed kowdii bishan March ay soo saartay shirkadda DP World ayay ku sheegtay in Ethiopia ay si buuxda uga mid noqotay saamilayda dekada Berbera waana 2 maalin kadib markii ra'iisul wasaare Khayre uu tagay Imaaraadka kadib socdaalkiisii Imaaraadka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuu Muqdisho ku qabtay shir jaraa'id oo ku sheegayo in dawladda Soomaaliya aysan waxba kala socon heshiiskaasi laakiin hadalkaasi waxa beenisay Somaliland oo sheegtay in Khayre uu goobjoog ahaa markii heshiisku u dhacay daacad kama ahan dawladda Soomaaliya hadalka ay sheegtay ee ah inaysan waxba kala socon heshiiskaasi oo waxbay qarinaysaa labadan sababood dartood haddii uu dhab yahay hadalkaasi dawladda ka soo yeeray waxay u yeeri lahayd safiirkooda Imaaraadka waxayna eryi lahayd safiirka dalkaasi u fadhiya Soomaaliya waayo ma jirto sabab labada dal ay saaxiib u sii ahaadaan marba haddii Imaaraadku ku xadgudbay madaxbanaanida Soomaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa ilaaliyaha dastuurka iyo xuduudaha dalka uu ka aamusay heshiiskan si lamid ah sidii uu uga aamusay dhibistii Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax ee sanadkii hore dawladda Soomaaliya ay u gacan gelisay Ethiopia haddaba aamusnaanta madaxda Soomaaliyeed iyo ku markfurka Somaliland ee ah in ra'iisul wasaare Khayre uu goobjoog ka ahaa heshiiskan soo macnaheedu ma ahan timir lab ku jirta